munaasabad lagu soo bandhigay buug lagu ururiyay suugaanta abwaan Cabdilaahi Xasan Gani oo loogu magac daray Garasho ayaa lagu daafuray magaalada Hargeysa waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay Saacad Cabdi Daahir oo ka socday shirkadda Sagal Jad oo iyadu buuggan daabacday anaga caawa farxad weyn bay noo tahay shirkad ahaan inaanu buuggan aadka u qiimaha badan ee uu qoray qoraaga da'da yar aqoonyahanka da'da yar dhalinyarada ah Rooble Cabdi Muuse isla markaana laga qoray abwaanka da'da yar murtida shilis abwaan Cabdilaahi Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Gani farxad weyn bay noo tahay inaan buugga caawana u daabacno sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay Rooble Cabdi Muuse oo ah qoraaga buuggan lagu ururiyay suugaanta abwaan Cabdilaahi Xasan Gani waxaanu ka warramay qaybaha uu buuggan ka kooban yahay garashay ka bilaabantay annaga isbarashadayadu intii kadib waa suugaanta Cabdilaahi baan sii dhex galay runtii waana suugaan aan ku qancay inay aad u culus tahay oo dadii kala buug kamaan qoreen maansa Cabdilaahi leeyahay baan meel ka dhexlo ii dhuumatay waa maansada la yiraahdo culays oo waxay ka mid tahay maansada uu bixiyay Cabdilaahi Dulmidiid waa maansa bixinaysa humaag inan dadka Soomaalidu ka dhalatay sida aan aqli iyo diin iyo aqoon iyo dhaqan toona ku salaysnayn loo haybsooco marka Cabdilaahi maasiis waxa ku soo xidhmaysaa cidda hiilka u baahan waa qolada laandheeraha isku haysata ee ku dhaqmaysa gunnimada inay dad walaalkooda dulmiyaan anoo ooyay marka Cabdilaahi soo waxaan ku yiri arrinkaad ma tii aynu ka sheekaysanayeen igu lahayd maad aniga igu barbaratid maba aha runtii aduu kaftan baad u lahayd laakiin haddii maasadani ay ku jirto suugaantaada shayga koowaad ee aan qoraya haddii aan la idhaa waa suugaantaada Cabdilaahi Xasan Gani oo ahaa abwaanka laga qoray buuggan Garasho ayaa u mahad celiyay qoraagii buuggan diyaariyay iyo qabanqaabiyaashii iyo sidoo kale ka soo qaybgalayaashii munaasabadan bilan waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad Rooble Cabdi Muuse oo doortay inuu suugaanteeda wax ka qoro aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxda wasiirada ma soo sharfay ma soo qadariyay halkan ka soo qaybgalay waxaan u mahadnaqayaa asxaabtii xafladdan ka soo shaqaysay shirkadda Sagal Jad oo daawacday buugga iyo dadweynaha tiradan faraha badan leh kaga soo qaybgalay ku yimid waxaa munaasabadda daafurka intii ay socotay halkaasi ka hadlay qoraayo soo akhriyay buuggan oo sheegay inuu ka duwan yahay hababkii loo qoray buugaagtii hore ee suugaanta laga qoray wasiiro abwaano iyo marti sharaf kale oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda qoraalka iyo akhriska iyo sidii loogu dadaali lahaa kaydinta hibooyinka bulshadeena gaarka u ah waxaan bogaadinayaa dhaqan wanaagsan oo iminka ummadda Soomaaliland ay yeelatay oo ah in lagu tartamo amba la soo bandhigo qoraalada dhinac kastaba leh ay ummaddan u leedahay hadday noqoto mid dhaqan mid siyaasadeed mid iyo mid suugaaneedba marka aad iyo aad baan ummadda si guud iyo qalilaydaba ugu mahadnaqayaa aniga Cabdilaahi waxaan wadaagnaa sida hore la sheegay magacaan wadaagnaa Cabdilaahi waa Cabdilaahi ana waxaan Cabdilaahi waxa kale oo wadaagnaa sida ku qoran boogaysa iskuulka biyaan cayga hoose oo Cabdilaahi ayaan anu iskuulkayga ahaa marka aniga Cabdilaahi runtii markaan qiimeeyo waxaan salayn badan baad ka weyntahay 12 sanadood ma noo dhaxeeya maalintii iskuulka la qoray maalintii isaga iskuulka la qoray marka kale Cabdilaahi waxaan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo ka hadlay xurriyadda hadalka iyo qoraalka ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland u jideeyay uguna baaqay suugaanyahanada iyo saxaafaduba inay hibooyinkooda ku dhisaan bulshada iyo dalkaba waxay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama aan afayeenkeedii ahay marka ugu horeysa iyadoo raacaysa dastuurka qaranka in ay ogoshahay inay ku shaqayso inay saxaafadda madaxa bannaan ixtiraamto qodobka labaad saxaafadda madaxa bannaan in loo isticmaalo in ummadda reer Soomaaliland lagu hagardaameeyana ma inay u noqoto cod cadowga Soomaaliland ku raaxaystana ma in ninkii soo weerarayay iyo ninka gudaha jooga isku cod noqdaanna ma dad badan baa qayliya haddii la yaa wariya la xiro wariyaha intuu reer u tago ku odhanaya reerkiinii kale baa idin
diyaar garoobaye idinku maxaad berrito yeelaysaan bal ka warraba haddaad ogaan lahaydeen Hargeysa waxay shalay ahayd ama Burco ahayd ama Berberi ahayd ama Hargeysa iyo Boorame inta loo kala socon jiray iyo inta kantaroolo yaalla iyo dalkani sidoo ku asaasmay dad badan waa u turi lahaayeen laakiin qaar baa u arka inay arrintu tahay fiilada quruxda badan iyo hoteelka quruxda badan iyo guriga quruxda badan mid uu la dhashay bay u arkaan simple laakiin meesha loo soo maray caawa in sida loo raaxaysto iyo ragga aakhira u jira iyo inta nabadda lagu dilay iyo inta beel la heshiisiyay iyo inta la isu keenay iyo inta lagu kala kacay iyo inta la isu guray rag baan ka xoogaalka